ديا بتاي ديا ديا بتاي ديا ديا ما تديا ديا ديا ترى فاهم إبراهيم حجر كيو فحوتي ديا ديا سمان ديا تقولي قلبي ديا نبتو غيبنا ديا كيو فحوتي ديا ديا سمان ديا kulanti wanaagsan daawadayaal idil ahaantiinba kuna soo dhowaada barnaamij gaar ah oo aanu ku eegayno mas-uuliyiin culamaa udiin ah oo ka tirsan masjid rawda oo ku yaala magaalada Milton Keynes ee waddanka Ingiriiska oo dhowaanahan deeq raashin ah oo noocyada kala duwan gaarsiiyay xerada qaxoontiga ee Xagardheer mas-uuliyiintan culamaa udiinka ay marka ay muddo joogeen oo urkur galeen daraasadna ku sameeyeen baahiyaha xasaasiga ee ka jira xeryaha ayaa waxay door bideen inay raashinkan ku qaybiyaan xerada Xagardheer haddaba daawadayaal waa kuwan qaar ka mid ah qaxoontiga Soomaaliyeed ee ku nool xerada Xagardheer oo ka waramaya raxan-raadkii ay la kulmeen intii ay ku soo jireen dariiqa oo ay ka soo hayaameen waddankooda Soomaaliyeed ee ay abaaruhu halakeeyeen sidoo kalena waxay ka warbixinayaan duruufo ay haatan ku qabaan xeryaha qaxoontiga iyagoo ilaa iyo haatan sheeganaya baahiyo iyo bukaan dheeriya waxaanay ka codsanayaan dadyooga islaamka ee ku nool daafaha dunida inay la soo gaadhaan deeq iyo gargaar dar ilaahay waxaan ka soo qaxay Baardhe haye ilaa Baardhe inta dhaxda ma soo lugeynaysa lug baan ku imaaday waxaan imaaday Doble yaan ku imaaday haye Doble baa ku imaatay inta hore waa soo lugeynaysa haye Doble markaa ka soo baxdana geel aan la xoolo aan leenahay yaan soo raacay meeshan la imaaday ma jalkeenta kareetooyin iyo wax baa soo raacday kareeto ma naqmiga awrge yaayna keenay haye marka aan meeshan kaga haray iyo wiilkayga ba jooga inta jooga haye meeshan asagoo jooga ugu imaaday haye wakaas marka inta maanta soo noqoteen marka ma kulanteen waa iska xanuunsanahay mooge waxaan lamaana kulmay ilaahay mahadiis haye cunno la'aan aad iyo aad dadku u baaba'san yahay haddii ilaahay ka dhigahayo hooy la'aan dadka qaarkii uu bannaanada iska jiifo haddii ilaahay ka dhigahayo macaluul daawo la'aan dadka bacligiisa oo biyo la'aan sheeganhayo oo maartay bannaanada la jiifo aad baa loo rafaadsan yahay dadka qaxootiga aad buu u baaba'san yahay waxaan codsanaynaa dhibkaas jiro wixii laga qaban karo oo ummadda ay ka qaban karto in maartay laga saacideeyo aad iyo aad buu dadku maartay u baaba'san yahay bannaanada ayuu shalooleeyahay xaafadaha qaxootiga hore waxaa ku dhex nool qoys kastaba 10 qoys ayaa kor saaran joognaa waxna ma haysano ummadan baa noo gargaartaa ilaahay ku sakow ummadana noo gargaarto ummadana shafaaco ku halni ma ogiya waa dhimanay waa rafaadnay qaxootigaanu joognaa Soomaali dhibkaas ugu soo baahan hadda ummadan unbaa shafaaca ka halne anoo haysta caruur rajooyin ah gaari gacan la aad u dhibaysan u baahan hooyadood ay mar hore maxay dhimatay saa daraadeed waxba ma soo gaarin waxaan codsanayaa caalamka sare iyo caalamka hadda aan la joogo intaba inay isaacideeyaan محمد علي ولا بلدوينا كصاح هذا أنت تدور برينا لحم كتير سد بلدنا هذا ماشان بانشوغان ومرنا تبان تي بماشان هذا السوق ونص من بنت يروق الجارين هذا نكان أنا هاي حاس يرير من ملي هو يدي أباي وارو بنت هو يدينا هاي سيدا سوماليا باهنا ayaan kamid ahay dadka cusub baan kamid ahay idina wax ma siiso hada waxna siiso baahi iyo dibkaas aan maraynaa ilmaabti baan taaganahay ma qoynay bay dhow marka abaarna gali oo la arteeda nooleedan marka walaal aan wayni antahan bani marka labaad bir hadeerni
labaadna beri hal waayani ma baa quraan ay harteeda doble inta doble hal waayani marka hadda taanam haysan hadda rafaad arteeda inta qoyni kaar arteeda soddon beri kaar la hayni kaar hadda helni arteeda wali ka dhaboona helni marka arteeda hadda nabadaanu tan laana wal kala man halawsan ha marka arniyo an maskana sagaal cunug badan ha sagaal cunug sagaal way mar guri art maxay intaan way gabar abdi daahir baa lay dhahaa haye sideed ma waan jiraa sideed ma jiraa haye intaad ka soo qax intee gaadhintay ya xaga gaasan ka soo qaxnay haye ma qabri wadax ku soo jirteen in badan baan ku soo jiray haye malka tiri meel dhaana waan geeyay waan Allah haye G3 ha G3 ha yaan Allah haye sideed waxaan sheegaa oo kale hadda guri sideed ku jirtiin saad u heshaan wax guri bool oo fiican baan loo dhisan ku jira haye gabadhana madaxna aydan noo uruurisay wax haye wana ka hadee tuqdana ma cadaawad caruur male iyadu indho male dhaga male anigu wiilba adduunka ku noolaa caradan eega meelu jira kama waramo waa adig keliga iyadana waa keligeed wadada markaa soo maraysa maxaa soo raacday ma soo lugaysa mise gaari soo raacday maya intii hore oo dhan gaari baan saarnay meela dhexdaasaan ku yar rafaadnay oo soo lugayseen anigu iyada mana hagayna dad kale hagaayeen hadda inta imaata marka sayta walaalaha salaama kulmin oo islaam baan la kulmay dhumanoona hagaajiyo bool noo dhis waa sideed magacaad waa dhagala أنا شيء مريم برالة لدها مريم برالة حس علي بالدها دجنا ماله عندنا ماله وبدنا ماله وقبله عرور ماله اللي بقول بند على يتر كم ورنا أنا ولا بدي بعدين تيتر يلا قعنت على وضم بالله يسوي كفريسي اللي بدي نمرك واحد يعني هرتاجنا وين يساعدين كوار إسلامي بدي ناكر كريسة بس wax kale in la joogo ma jiro wax kale in la joogo waxaad dhasheen iyo wax qaraabo iyo wax midna waxaan noo xigiyo wax nala joogo midna ma laha magacayga waxa la shuri iimaan sheekh xasan waxaan ka soo qaxnay kismaayo waxa ugu mahad celinaynaa qeyr ilaahay inuu si dadka noogu soo daawacay noogu soo deeqay inuu ilaahay culimada masaajidka qeyr inuu ilaahay siiyo marka loo jir baan halooda aga dhamaatay waa cirtoobay marka sidaas aan ku soo qaxay marka shaqada ku mahadsan yihiin madiina gaas yuusuf madowgaan ka soo qaxay meeshaan imaaday wadaadkii wada joogna intuu ku dhintay ilma agoomaan haystaa xaafadda sii tabnaadaan deganahay wakaasoo caawin waa isaga baahna dadka islaamka hadduu caawiyo caawin waa u baahan wakaa masaajidka alaabta idin siiyo masjidurrawda mahad baanu celinaynaa dad sharaf loo islaan oo na caawiyaan helay sir fiican oo sharaf loo wax noola siiyey markaska abubakar sidiiq waa markas ku yaala xerada qaxoontiga ee xagardheer oo lagu qaybiyo raashinka iyo deeqaha kala nooca ee soo gaadha xeradaasi waxaana ka warbixinaya qaar ka mida culimaadudiinka ka howlgala markaskaas oo ka warramaya sida ay u maamulaan ama u nidaamiyaan deeqdu marka ay soo gaadho iyagoo la beegsada meeliba meelagjay ka silacsan tahay ama qoysba qoysku ka itaal daran yahay